waan salaamayaa warbaahinta qaranka dhammaantiin dhalinyarada aadna wali mahadsantihiin saad shaqada wadaan waan idinku bogaadinayaa shaqada qaranka inaad ka shaqaysaan islamarkaana aad sii wanaajisaan inta ka bacdi dabcan aniga maxkamadda ayaan mas-uul ka ahay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaranka Jubbaland waxaan rajaynayaa uun si guud markii ciidamada iyo wacyigelintooda iyo looga yimaado annaga waxyaabaha quseeya waxaa ka mid ah in aan maxkamadayno dadkii gala dambiyada ciidamada iyo wixii calaaqa la leh ama ciidanka ama ciidanka ciidanka waxaan ka wadnaa waa ciidanka sharciyeysan ee nidaamsan ee dawladdu ay leedahay ama ay leedahay kameriyada amnigu ay leeyihiin ciidankana waxaynu ka wadnaa waxyaabahan maafiyada ah ee waddanka ka jira sida khawaarijta iyo waxyaabaha lamidka ah marka maxkamaddu shaqooyinkaas ay inta badan ay qabataa wixii uu sharci ku saabsan ee ciidankana ahna waxa weeyaan shaqay ku leedahay iyo wacyigelintooda marka waxaan rajaynayaa inaad arrintaas iga wareysanaysaan way gudoomiye maalmahan waxaa jiray xukunno aad soo saarayseen oo dad badan oo dhowr aan mar ahayn oo laba ahayn oo xukunno aad ku ridayseen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ma xukunno horaan la qaadin baa jiray dadku waxay isweydiinayaan xukunnadan maalmahan isdaba jooga Jubbada hoose xarunteeda taliyuhu mar walba soo saarayo marka ma shaqooyin la qaban baa jiray baa isleedahay mise maxaa soo kordhay jawaabtan waxay noqon kartaa laba arrimood arrinta koowaad waxa weeye maxkamaddu in muddo hakad bay ku jirtay oo dib u dhis baa lagu sameynayay muddo 7 bilood ayay maxkamaddu hakad gashay oo maxaan ku dhahay ay dib habeyn lagu sameynayay waxaad ogtihiin bishii afraad saddexdeedii ayuu madaxweynuhu dib u dhis ku sameeyey maxkamadda iyo dib habeyn ku sameeyey anigu dadkii markaa la magacaabay baan ka mid ahaa systemkii hore iyo systemkan marka waxbay ku kala bedelan yihiin maadaama marka ay hakad gashay waxaa ururay dambiyo badan faldambiyeedyo badan baa ururay taas marka waxa weeyaan waxaan kaga jawaabaynaa ma waxaa yaala kiisasta iska ururay baa jiri haa dabcan saasay ahayd waxaa kaloo meesha iyaduna jirtay maadaama waddanka oola cusub uu ka jiro oo maxaan ku dhaha lagula dagaalamaya khawaarijta iyo dadka dambiyada falka midiga ku ah amniga ka shaqaynaya waxaan ugu talagalnay in runtii maxkamadda iyo sharciyaddu si ay u shaqayso inaan maxaan ku dhaha dardar aan gelino arrintaasaa marka sabab oo ahayd laba arrimood baa marka meesha ku jira oo in maadaama waddanka dib u xoreyn lagu jiro oo shabaab badan lasoo qabanayo dadka kale ee dembiyada u xidhan kiisaskooda la dhameeyo sifa loogu soo gacan banaanaado kuwa shabaabka ah iyo mujrimiinta kale loogu soo madax banaanaado saasaa marka keenaysa in dadka maxkamada ku jira xabsiyada maxaan ku dhahay wixii baaritaankooda iyo gungaarkooda soo dhamaaday in maxaan ku dhahay eedooda lasoo gudbiyo maxkamaddu inay dardar geliso marka sidaasay ahayd way ma dhammaadeen markaa dacwadihii mise weli waa wadaan maadaama maxkamaddu aad tidhi mudday hakad ku jirtay de kolley waad og tahay oo meel ciidan ku nool yahay oo waddanka waa la hubaysan yahay dambi baa dhacaya maalin iyo habeenna beligii wuu istaba socdaa laakiin de markii hore meesha annagu aanu nimid maadaama maxkamaddu ay hakad muddo ku jirtay xabsiyadoo dhan waxaa ka buuxay dad ku eedeysanayaal ah dadkii eedeysanayaasha ahaa waxaan u kala qaadnay gacan ku-dhiiglayaal iyo dad loo haysto waxyaabo kale oo markaas aan ahayn dhimasho aan ahayn dhaawac oo kale masalan iyo dad mararka qaarkood laga yaabo in xoolo iyo saas oo kale ah laba nin oo ciidan oo hanti kala gaadhay ama dhul isku haysta oo dhibaato isugu geystay waxyaaba noocaas oo kale ah marka wixii gacan ku-dhiigle ahaa 99% waanu xukunay waxaa soo haray dad maxaan ku dhahay uu noqday hawshooda xoogaa laga soo heshiiyey oo laga yaabo inuu kama oo kale masala uu noqday iyagana saas oo kale heshiisyo ayay ku dhammaadeen sidoo kale kiisaskii fudfudaa oo dhan iyagana waanu dhammaynay walilahi alxamdu walminna waxa noo haray hadda waa wax iska kooban oo aan rajaynayna iyagana insha allahu tacaala bisha 11 gudaheedana kusoo absarayno kusoo dhammaystirayno dabcan laakiin waxaad ogaan kartaa maadaama ay ciidan hubaysan oo waddanka iyo waxyaaba fara badan ay jiraan waddanka laftiisa darooga iyo kusoo bateen faldambiyeedku leyla nahaar habeen maalin uu dhici karayaa marka wixii madna lama dhammaystiri karayo laakiin waa la fududayn karaa hadda waxaas wacyigelinta ma siisan si waxaan u yaraadaan kiisaskan ka dhexdhacaya ciidamada dhexdooda ها طبعا ده وعيجلين هذا بدك لو وعيجلين وحلا كان كره يسبب سيد اللي بيحكوا كمان سواء تبقى كان هذول شرعية عن لبرين أو عن لبرين في الدنبيات كي أو وعيجلين عن الله صميمين وحوي كان كره يسألين بدك الدنبيات يجوك سدان ما كان عنده سوق رب وضنا حكم كي وعيجلين كي محكمة
badanaaba maalmaha khamiista iyo sabtiga oo kale waxay tagtaa xarumaha ciidanka ayadoo wacyi gelinaysa oo la hadlaysa dabcan rag culimaada maxkamadda mas-uulka ah diinta loo sheegaya dhalinyaradii waxaan rajaynayaa runtii wax fara badan inuu hadda alxamdulilah noo qabsoomeen oo aan dareemayna annagaba ama waaqaca magaalada Kismaayo iyo gobolka Jubbada Hoose guud ahaan in laga dareemayo in ay yani socoto ciidanku aad iyo aad wax fara badan ugu toosay waxaan runtii aanu mahad celinayaa saraakiisha ciidanka oo iyaguna aad iyo aad ciidanka dibaabayn ugu sameeyey oo barotokolaadka ciidanka iyo disbilinkiisa aad u saxay marka wacyigelintu mar kasta waa lagama maarmaan waxaan isleeyahay runtii guud ahaan dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan dowladaha xubnaha ka ahba waxyaalaha loogu baahida badan yahay ka mid tahay dadka in la wacyigeliyo way goormaa loo gudbayaa xukunada loo fadhiisanayo dadka lagu tuhmayo ama si qawaarista waxaan garan karaysaa khawaaristu waxa weeyaan waa cadowga ugu xun ee waddankeena maanta jooga waaye ama aan waddankeena ma dhihi kareen markaan basharka adduunka ku nool markaan fiiriyo dadka ilaahay abuuray dadka horta ugu sharka badan weeye marka nimanka noocaasi horta in la dabargooyo waddanka laga dabargooyo waa waajib diini ah waa waajib wadani ah waa waajib qaanuuni ah inta markaan kasoo gudbo waxaad garan karaysaa waxay u baahan yihiin haddana maca daalika inay cadaalad helaan oo la baaro oo gungaar fiican laga sameeyo oo kiisaskoodu maadaama yihiin يعني niman sir ku shaqaynaya oo wuxuu u yahay shabakado isku xiran oo si aad iyo aad u hooseeyo oo daqiiqa u shaqaynaya waxay u baahan yihiin in la helo shabakado si cilmiyeysan u cilmi baarid ugu sameeya oo gulgaar sameeya oo hubiyo kiisaskooda qof waliba doorka uu ku leeyahayna uu ka qaato marka maadaama ay yihiin maxaan ku dhahay shabakad aad iyo aad si sir ugu shaqaynaysa waxaynu u baahannahay inaynu baaritaan dheeriya samayno arrinta iyada waxaan la kaashanaynaa guud ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan maxaan ku dhahay hay'adaha nabad sugidda iyo sirdoonka oo runtii aan isleeyahay dhinaca Jubbaland oo aan ka warhayo shaqo wanaagsan bay ka qabteen oo garan karayso xataa nimankii baabuurta la baxsaday ee la tagay jirib inta la soo qabtay in maanta ay ku xixiyeen Kismaayo aad og tahay odayaal ka qayb galay shirar maxaan ku dhahay ay ku dooranayeen nabadoon shabaaba in kulligoodna soo wada xirxiray oo hadda ay xirxiran yihiin oo ay rumaan ku xiran yihiin maxkamadda rumaan iyo xabsaxaban ay samaysay marka maadaama ay waxaan yihiin kiisas yani sensitive xasaasi ah ayna aad u adag tahay in xogta la helo waxaan ku dadaalaynaa 100% xogtii oo dhammaystiran sidii loo heli lahaa inaan ka fakarno marka hakad bay noogu jiraysaa inta aan ka helayno maxaan ku dhahay kiis walba gungaarkiisa aan ka helayno waxaan rabnaa marka si guud ahaan baaritaanka guud baan u wadnaa baaritaankaas guud marka kolba intii nooga dhamaado ayaa waxaan rabnaa haddii la maxkamadda la soo saaro wixii ay ka mutaystaan shareecada islaamka iyo sharciga dalka u yaalana inaan ku qaadno way fariintaada ugu dambaysa aad u dirayso ciidamada maadaama tahay guddoomiyihii maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waa maxay fariinta halka uga diraysa runtii fariinta u diray waxa weeye ciidamada waxaan leeyahay horta marka koobaad niyadiina wanaajiya oo waddankan inaad islaaxisaan oo ilaahay dartii u islaaxisaan niyadiina waxaad niyootaan inaad ajir helaysaan waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi man yaklawna leyla walahu ljanna war caawayaana waardiyeynaya oo janno aan ugu bishaareeya askariga maanta caawa dadka waardiyeynaya ee maanta amniga u taagan waa inuu ogaado inuu cibaado ku jiro waa haddii uu niyeysto waayo inama alacmaalu binniyaat marka shayga koowaad ee leeyahay waxa weeye askarta jihaad baad ku jirtaan khibaad baad ku jirtaan waxaad niyootaan ilaahay dartii camalkiina ilaahay dartii u niyooda maxaa dhacay waxaad u gargaaraysaan hooyada xanuunsan odayga waayeelkee xanuunsan ilmaha yar ee agoonta ee baahan kan wax baranaya sheekha masaajidka ku socda ardayga dugsiga ku socda macallinka dugsiga dhigaya kan waxbarashada caawinaya kan wax qalaya ayaad caawinaysaan in uu qofka maanta dadka laynaya ee qarxin haya ee waxaa beeraha in lagu goto laga awoodi laayahay ee waddankii amnigiisa khalkhal gelinayaana mujaahid isu yaqaano oo sida ay shabaabka isu yaqaano ama khawaaristu uu mujaahid isu yaqaano idinka oo maanta oo dhan ku jira inaad waddankii difaacdaan oo dadkii waardiyeysaana aad u aamini weydaan inaad jihaad ku jirtaan runtii waa nasiib darro waxaan leeyahay shaqo wanaagsan baad haysaan shaqada ilaahay dartii niyooda abaalkiina lama gudi kara laakiin ilaahay xaggiisaad ka helaysaane dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina badbaadiya shayga koowaad ee qofka muslimka laga raba inuu ilaaliyaana waa diinta hala ilaaliyo diinta aynu ku qaadano fooda ku wadano nimankaasi diinta way ka been sheegeen way xumeeyeen way fool xumeeyeen diinteenni waxay ka dhigeen diin maxaan ku dhahay mindi kharoofan wadata oo dadka qasha oo dadka gowracda cagsiguna waxa weeye diinteenni waa diin raxmad waa diin naxariiseed waa diin ummadda u naxariisata waa diin gaalka ku soo islaamo wanaaggeeda marka uu arko kuwanina waxay ka hortegayaan dadka soo islaamaya ee diinta wanaaggeeda baranaya ayay ka hortegayaan cadow baana ka dambeeya marka ciidanka waxaan leeyahay fikirkii
bira ku qabta habeen iyo maalin u soo jeeda inaad maxaan ku dhahay nimanka cadowga ummadda aad ka dabargoysaan aadna waad u mahadsantihiin ilaahayna ha idinla jiraan leehay ducadana ogaada